kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhalinyarada oo idinka imanaya magaalada Hargeysa gaar ahaan Hotel Guuleed. barnaamijka waxaad si toos ah uga daawanaysaan Bisla TV waxaana marti ku ah toddobaadkan Cabdinaasir Xasan Saleebaan oo kamid ah bahda dhalinyarada Soomaaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa. marka horeysa Cabdinaasir ayaan ku soo dhaweynayaa barnaamijka dhalinyarada ku soo dhawow. ku dhawaad barnaamijka dhalinyarada saaxiib Cabdirasaaq Cabdisaan Xasan ku dhawaad saaxiib aad u maasantahay. وأتاي عبد الناصر وأتكون مع تنتاي صدق صغير كشيء برنامجك والله حضر بحنا قصة حالات الدنيا الصومالي لان وقت كان هاتلو جود شرو استبدل كوينه وكذا عيا الصومالي لان عبسان وصاحي برتا الدنيا واحد كوش تقريبا كل دوان بس واحد شرتا شق الآن بس لو كنت تجودها بس الملا نقطة دك الدنيا تصوب على الثاني وحبك قبل حكومة المدحوين بيحي استمر كان واحد صار الدنيا iskuudu xumaashaa iskuudu xoqabta aan habeelataysan maratay adina qoto goobi ku ciyaarigay adina qoto goobi madadaalada kale marka wallahi dhalinyarada marxalada kala duwan ku jiraan marka waxaan oran karaa dhalinyarada doorkan maratay way ka duwan tahay doorkii hore adina qoto marta daga shaqo abuurka kale marka wallahi waqtiyo kala duwan u dhaxaya dhalinyarada marka waxaan la dhalinyarada la gacan qabto dhalinyarada la taageero هذه تاي حق مدحدا هذه تاي حق مرتا شقه وركا in loo sameeyo qurux badan أتاي عبد الناصر marka laga imaado xalka laga gaarayo shaqo la'aanta dhalinyarada haysta iyo sida dhalinyaradu isku kaabi karaan iyo su'aasha horeba aasha kale xigta waxay noqonaysaa qofka dhalinyarada ay soo gudbile ee shaqo doonka waxa jira caqabado ka hor imaada marka goobta shaqada tago caqabadaha maxaa naga taaban karaysaa sida kale aad u ka mid tahay dhalinyarada mar isku dayna shaqo doon ee shaqo doontaan isla markaana ma la kulantay caqabadahaas dhalinyarada ka soo darsay oo warbixin kooban naga sii horta cabsan saaxiib su'aal aad u qodbay waa su'aal munaasaba haawi jiraan adoo kale shaqo oo shaqo doontay in ka talaha aqoon ka talaha tasaag to kuma tahay ama kulma tahay taasnoortu waa caqabad ma tahay doodayna qofkeen aqoon isleegay aan leeyahay bas leeyahay qof reebay yahay qofkani wala garanaya qofkani ma lagu garanaya odanimo marasa iyo radnimo waana mid ugu weyn ee maanta la sameeyay waa mid ugu weyn ee maanta dhalinyarada kala barobada ay aqalada jiifaan aan waxba qaban isla markaana isku dayay horta cabsan oo saaxiib aqoon isku dilayeen hadii noqoto dhanka bulshada shaqada doontay kol horta aan aqalada soo mareen aqalada badan soo mareen hadii noqoto dhanka shaqada hadii noqoto dhanka bulshada iyo hadii noqoto dhanka asxaabtada soo maray aqalada badan dunida sidoo wara aqalada hadii soo waxba ka hormaraya oo joogti karaya marka dunida dhamaantii bacrafada qabsano marka xulad yahay carqalad kasta wax loo yeesho dhalinyarada iyo suuqaad wax kasta ka hor midda dowlad cadid tasay meel ku cadaato tas oo kuna in ku bixaa markaana waa mid jimir saddex heebada soo bandhigi kartaa oo lagu taskaro diinta la keenay soo oo asmarku wajahda iyo qofka marada marka aqal isku badahay tas waa samir u qanya dhamaadayg loo baahay marada in marka lagu joogo وأتاي عقبات dhalinyarada haysta waxaad sheegtay inay kamid tahay shaqo la'aantu sideeba looga bixi karayaa shaqo la'aanta dhalinyarada haysta sida kale shaqo la'aanta dhalinyaradu ka baxdo qayb weyn ma ka tahay dhalinyarada qudhooda iyagoo sameeysta shaqo abuur intay xukuumadda wax ka sugi lahaayeen saaxiib horta Cabdirasaaq oo mid ay jirtaa taasoo ay xukuumadda madaxweyne biixi ku guuleysatay taasoo la raado barnaamij uu diyaariyay madaxweynuhu isla markaana kamid ah barnaamijyadii ugu jiray hoolanka doorashooyinka iyo waxqabadkiisa taasoo barnaamijka shaqo qaran barnaamijkaasi oo runtii waxyaabo badan kaabay haddii noqoto ardayda jaamacad soo baxdo kale markii hore shaqo ma haysan karin qaar baa wax ugu dambeyn jireen qaar way tahriibi jireen qaar balwadaha badan jireen balse barnaamijkaas ayaa odhan karaa qayb ayuu ka qaatay muhiima balse waxaa jirta dhalinyaro badan oo xoogsata kuwaasoo mararka qaar loogu tacadi sheegto maratay habeeratay shaqooyinkooda qaar baa magarasay kuliya gala qaar baa dooxida ku jira marka waxaan oran karaa dhalinyarada caqabada ugu weynaysta waa shaqo la'aanta marka ku nimaano barnaamijka shaqo qaran si waxaan ku dhiirigelinaa xukuumadda in dhalinyarada la gacan qabto waa mustaqbalkii Burtole waana u bixi Burtole marka dhalinyaradu
way samaysan karaan shaqo abuur way iskaashan karaan marka taas waxaa ku fiican tahay in xukuumaddu qayb ka caawiso haddii noqoto dhanka shaqada haddii noqoto marasa wasaaradahoo kale ama shaqooyinka marasa hay-adahoo kale inay caawiyaan ayaa qurux badan si waddankeena dhalinyaro lagu abro shaqo aada wanaagsan isla markaana aan ku tallaabsano horumar aada u ballaaran haddii noqoto dhanka shaqada oo la tartano caalamka oo kale marka waxaa odhan lahaa dhalinyarada la gacan qabto dhalinyaraha garab istaago waad tahay daawadayaal intaa waxaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka dhalinyarada ood si toosa uga daawanayseen bisla t v barnaamijku wixii ka imanayay magaalada hargeysa gaar ahaan hotel guuleed waxaa marti ku ahaa cabdinaasir xasan saleebaan oo ka mid ah bahda dhalinyarada somalilan gaar ahaan caasimadda hargeysa intaynu ku kulmayno barnaamijka xiga iyo toddobaadka dambe waa anigoo cabdirasaaq cabdisalaan oo idila socodsiinaya barnaamijka barnaamijkeenu waa toddobaadka dambe iyo barnaamijka kan xiga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته